Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan halkii kasii wadi doonaa casharadeenii xisaabta. Maanta casharkan bilaabi doonaa wuxuu noqon doonaa farqiga u dhexeeya prime numberska iyo composite numberska. Prime numberska waxaan kusoo sheegnay waa tirooyin mutaxan. Tirooyinka mutaxan waxaan u sheegnay in astaamo leeyihiin, astaamo lagu garanayo ardaygu marka uu tiradaas arko. Astaanta ugu weyn waxaa weeye waa in tirooyinkaas aysan jirin lambara u qaybsama. Macna marka ayaga iyo laga reebo lambar 1 ma jiro lambara kale u qaybsami kara tirooyinka aysan jirin, kuwaas ba waxa loo yaqaan tirooyin mutaxan. Tusaale ahaan waxaan soo qaadanay lambar 2 3 5 7 11 13 14 19 way sii badan yihiin. Marka tirooyinkaas mutaxan tiro kale u qaybsanta ma jirto. Tusaale ahaan oo kale lambar 2 oo kale tiro kale oo marka dib laba loo qaybiyo tiradii lama heli karo. Hadda tusaale ahaan waxa nagu qoran 17 iyo 23 ma nagu qoran. Hadda daan 17 oo loo qaybiyo 2 uma qaybsamayso. Maca tiro kale oo 17 u qaybsami kara ma jirto. Aan ka ahayn hal, maca 17 oo loo qaybiyo hal waa maxay noqonaysaa? Waa 17kii. Marka waa tiradaas hal waxaan ahayn ayaga ma ahan wax kale u qaybsama ma jirto. Marka tirooyinkaas ba waxa loo yaqaan tirooyin mutaxan. Waa tirooyin aan aysan jirin tiro aan u qaybsamin, macna tiro u qaybsanta marka laga reebo laftigooda iyo lambar 1. Marka farqigaas wuxuu noqon karaa farqi lagu garan karo ardaydu kala saari karaan tirooyinka mutaxan. Casharadeenna hore oo kale waxaan ku soo sharaxnay even numberski, odd numberski, ayana casharadii hore ku soo sharaxnay. Haddii ayaga u baahan tahay casharadeenna hore dib waa ugu noqon kartaa. Casharka labaad waxa weeye composite numbersku maxay yihiin ayaguna. Composite numbersku waa tirooyin isku dhafan weeye. Waxa ka mid tirooyinka ama tirooyin aan dhigi karno waxay leeyihiin marka ayaga iyo 1 laga reebo tirooyinka u qaybsama bay heli karaan. Tusaale ahaan oo kale lambar 4 oo kale lambar 4 lagu dhuftay 1 waa 4 ama 1 lagu dhuftay 4 waa 4. Sidoo kale muxuu leeyahay tirooyinka u qaybsanta oo ah 4 dimata marka loo qayb 2 4 lagu dhuftay mataqana 4 loo qayb 2 sumahan ama 2 loo qayb 4. Marka macna waxay leeyihiin tiro kale ee u qaybsantay leeyahay lambar 4 waa isaga 4 ah iyo 1 iyo 2 leeyahay. Macna tirooyinkan 4 u qaybsama hal waa loo qaybin karaa dansa soo sheegnay hal hadii tirada ay laftiga u qaybsantay kaliya waa tirooyin mutaxan ku sheegnay sumahan. Laakiin farqiga ugu duwan yahay maxaa weeye in uu tiro kale leeyahay oo u qaybsanta oo ah lambar 2. Hadda 6 oo kale lix wuxuu leeyahay hal iyo isaga markii laga soo tago hal iyo lambar 6 laga soo tago wuxuu leeyahay 2 waa loo qaybin karaa 6. Isagoo maxaa loo qaybin karaa 3 waa loo qaybin karaa. Lambar 8 oo kale 2 iyo 4 waa loo qaybin karaa oo kale. 9 oo kale 3 waa loo qaybin karaa soo ma. 10 oo kale 5 baa loo qaybin karaa, 2 loo qaybin karaa markii laga soo tago isaga iyo lambar 1. 12 oo kale waa farci badan buu leeyahay loo qaybin karo. Waxa kamid ah 2 waa loo qaybin karaa, 6 waa loo qaybin karaa, 3 waa loo qaybin karaa, 4. Marka tirooyinkaas oo dhan waxa loo yaqaan tirooyin isku dhafan. Tirooyin isku dhafan waxa weeye waa dhammaan tirooyinka aan ahayn tirooyin mutaxan. Waa garanaysa even numbersku xataa wax soo isgalayaan kuwan composite numberska ay soo isgalayaan. Marka qayb kamid ah baa soo isgalaysa. Even numbers maxaa ku soo sheegnay waa tirooyinka ay 2 u qaybsanto oo maxaa kamid ah 4 6 8 10 12. laakiin odd numbersku waa tirooyin maxay leeyihiin tirooyin lambar badan u qaybsama bay leeyihiin laakiin tiradaas uma qaybsanto 2. Hadda soo kale odd numberska waxaan ku sheegnay 9 baa kamid ah Soomaan 9 5 iyo 10 tirooyinkaas oo kale waa tirooyin leh ayaga marka laga reebo 1 tirooyin kale u qaybsama. Marka tirooyinkaas haddana laakiin wax uga duwan yihiin odd numbers ku noqdeen waxa weeye in aysan lambar 2 aysan u qaybsami karin. Hadda 9 lambar 2 u qaybsan 4.5 aad soo baxay Soomaan taasna jajab bay noqonaysaa. Jajabna waa loo baahan. Laakiin haddii 10 oo 2 loo qaybiyo waa 5 tiro caadi oo dhameystiran baa soo baxaysa. Marka casharadeenna hore baan ku soo sharaxnay. Marka waxaan rabnaa insha Allah taala inaan meesha ka sii wadno. Casharaduna waxay u socon doonaan si aan u qorsheen oo ah in casharada say mataqana tirooyinka casharada primary lagu dhigto kale inaan syllabuskaas oo kale u wadno. Marka insha Allah taala haskuudana maanta waxaan aad u kala fahmaynaa farqiga u dhaxeeya tirooyin mutaxan iyo tirooyin isku dhafan ama tirooyin dhafan. Marka hore waxaan uga soo hadalnay odd numbers iyo even numbers iyo
waxa ay yihiin horeba uga soo hadalnay. Marka casharada ardayda waxa u fiican in ay si fiican ula socdaan, si u kala horeeyeen, si u soo fahmaan, sidoo kale ula qabsadaan casharada aan hadda dhigi doono insha Allah tacaala.